marka ninkii bay murmayaan aniga kama warqabo diyaaradan saarana wuxuu leeyahay warqad iscasilaada soo qor madaxweynaha warqad oo madaxweyne inuu yahay wuxuu meesha uga tegay oo uu xaaladan jirta awgeed uuna soo noqon doono yuu qoray haddaynan qorin warqad iscasilaada diyaaradda xamaray soo maraysaa ama meeshay kama kacayso waa murmayaan marka maxaa jiraan leeyahay aniga dad badanna waa na soo raaceen moogtahay marka diyaaraddii aviationkii la soo hadlaayeen waxay leeyihiin haddii aad soo kacdo waa inaa xamar soo bartaa kan marka wuxuu ku leeyahay haddaa intaad diyaaraddaa saarantihiin haddaa hadda facebooka soo gelin weysa cabdifataaxow waan ama waa la idin celinaynaa ama xamaraa la igeynaa wax ani la igala tashtay maha marka waxaan socdoo dhan ma ogi diyaaraddan saaranna war maxaa jiro waxbana looma sheegaayo taleefon waa la qaylinaya bas wuxuu yidhi marka oon ka fahmay kuraasta naga horreysa u fadhiya cabdifaax wuxuu yidhi war annaga xamar nama soo marayna waayahee saa rabtid in lagugu qoro warqadda ayadoo qoraal ii soo qor horta qoraalkaas waxaa soo qortay xasan sheekh oo soo diray ani weli la ima sheegaya cabdifataaxna barti facebooka yuu geliyey because of xamaraa maraysaan iyo ma baxaysaan oo bistoolo madaxna looga haya marka anintaas dhan lama yaabani waa iska xeeladaysi ma ogi markaan inta nimid oon soo degnay oon xaafadayda imid yaa show warqaddii waa la geliyey marka intaan hawada ku soo jirnayna waa laga saaray ragga xafiiskii oo dhan baa joogo qaar Nairobi joogaan waa ka bixin ani waxaasoo dhan ma ogi warqad ha la qoro ma dhihin ha laga saara ma dhihin markaan imid oon xoogoo joogo yaa ninkii isoo wacay markii hore na xiriirinayo oo duqi la joogo waa salaamay duqibu ii dhiibay wuxuu yidhi war ii waran cabdicasiiseeta oo fiicana waa nabad tagnaaden wax dhib lama jiraan waa nabad qabnaa jaraalmaha Nairobi aan tagnay waayo wuxuu yidhi warqadda la sheegaayo maxaad meesha uga bixiseen soo dad inkama dambeeya oo nimankii inay dadkiina haystaan soo ma maxay tahay regionaal warqadda oo saasaa jirtay nimankan waxay leeyihiin haddii warqaddii aan la soo celinin waxaan ku geynaynaa maama Khadiijo waana ku xiraynaa maxkamadaana ku saaraynaa oo bistoolad baa madaxa iga saaran ciidankii baa sida ila jooga